السلام عليكم كنتي wanaagsan kusoo dhaw muuqaalkii hore hadaa soo daawatay dabcan waxaan kaga soo kusoo dhameynay oo kusoo gabagabeynay dhisaankeeni ahaa posterkii aan ugu talagalay dugsiga tusaalaha ugu soo qaadanay markaad documentigaaga dhamaystiratid oo wixii u baahnay oo dhan ku darsatay dabcan waxa laga yaabaa inaad u baahatid ayada inaad daabactid oo madbacad ahaan u disatid iyo inaad u isticmaalto as digital oo website ahaan wixii aad u isticmaalaysid marka waxaan ku qaadanaynaa muuqaalkan labada qaab markii aad u baahan tahay qaabkaad ugu save gareyn lahayd mid walba wada gaar ah loo maraa waxaan ku bilaabi doonaa qaabka markaad u baahan tahay website oo kale marka u horeysa waxaad u baahan tahay sawirkaagii markii hore ku koobnaa layer tira badan wuxuu ka kooban yahay groupyo waxyaalo badan oo isu tagtagay kala duwan marka waxaan u baahannahay markaan website ahaan u save gareynayno in aan sawirkii ka dhigno flatten oo one layer ka dhigno oo isku wada dhejino qaabkan isku dhejinayna waxay tahay wax tagaysaa layer kadib waxa ka dooranaysaa flat image wuxuu ku suurtagelinaya in sawirkii oo dhameystiran isku dhajiyo oo ka dhigo one layer wixii iskor saara oo dhan hal mar isku wada dhajiyo hadaa click siisid hal su'aal buu ku weydiinayaa oo waxay tahay hadii meesha hidden layers ay ku jiraan oo dabcan layer aad meesha ku qarsatay laakiin aan markaa ka muuqan design-kaaga ay kugu jiraan taasina waxay ku suurtagelinaysaa lacala hadaa ilowday layer ama design-kaaga ka tirsanaa wax muhiim ah in uu ku xasuusiyo oo halka hadhow saa ugu soo maxaa feasibility soo celin kartid waayo hadaa isku dhajisid hadhow suurtagal kuma noqonaysana wax layer access garaysid marka inagu hadda intaas aan u baahanahay then okay baan dhahnay okay hadaa dhahno layerska hadaa fiirisid documentigeenu wuxuu noqday wax isku wada dhigan oo one background waxaan loo bixiyay background marka intaas ay dhameystiranto marka waxaan u export gareynaynaa oo ka dhigaynaa inaan u isticmaali doono hadhow ka dhigaynaa wax website la saarayo waxaad tagaynaa file markaad tagtid halkan waxaa ka fiirinaysaa export ama save for web taas ba ku dhufo oo isku mid then waxa ku soo baxaysa boxkaas wuxuu ku suurtagelinaya waxyaalo badan marka inaad ka access gareyn kartid inaad haddaad u baahan tahay bedeli kartid type-kii sawirkaaga in aad bedeli kartid maxaan ku raahdaayay inaad kalarada meesha kuugu jira inaad wax ka bedeli kartid oo kale inaad u baahan tahay maxaan ku dhahay awood u leedahay inaad isticmaali kartid 2 kalar 4 kalar iyo wax ka badanba marka inta galisid xagga hoose hadaa fiirsay sawirkeena wuxuu estimate ka siinayaa data ahaan maxaan ku dhahdaa intuu noqon karo sawirkeena marka haduu export gareyno uu soo baxo intuu hard disk ka qaadanayo saan hadda wax ku qoran 414 GB buu noqonayaa 414 GB waxay ka dhigantahay hadaan saa u save gareeyo sawirkayga hard diskayga intaas ka qaadanay kaadka xagga kore hadaa fiirisay meesha wax ku qoran preview-ga nooca ka dhigan kartid tusaale ahaan hadaan kan click siiyo waxa soo baxay laba preview labadaas waxay kala tusayaan inaan originalka arki karo iyo kan aan hadda doortay anigu tusaale ahaan hadaa click siiyo saa igu soo baxda zoom-ka waa yareynaya saan wada arko waxaan ka dhigayaa tusaale ahaan oo kale 33 si yareeysan si fiican wada arko waxaan ka dhigay 12 oo kale 12 marka ka dhigo file-ka oo dhameystiran baa ii muuqda file-ka oo dhameystiran markuu ii muuqdo marka waxaan awood u leeyahay inaan kala arki karo kii aan marka doortay iyo kii kale hadaan marka qaabka u save gareeyo oo halkaas siisa u save gareeyo wuxuu noqonayaa inaan kii hore iyo kan hadda halka iga muuqdo isku mid yihiin hadaan color iska bedelayo mar walba waxaan tagayaa meeshaydii dan waxaan ka bedelayaa halka inaan 2 kalar ka dooran karo 4 5 6 7 128 ilaa 256 kalar baad gelin kartaa marka inagu hadda waxaan u baahanahay inaan ka dhigno png oo 8 ah kadib aan kalarada aan ka dhigno 128 wax kalara intaas hadda noogu jirtay uusan wax dheeri ku soo darin intiis hore kadib aan marka saa u save gareysano oo location-kii iyo wixii aan halka ka sii doorano dan hadaa dhahday intaas ku joojinay laakiin save hadaan dhaho wuxuu ku qaadayaa meesha ku save gareyn lahayd tusaale desktop-ka ama waxaan geynaynaa oo kale desktop-ka then waxaan geynaynaa project folder-keeni kadib halkan wuxuu ka suurtagelinaya inaad html ka dhigi kartid iyo inaad ka dhigi kartid image ahaan marka inagu waxaan rabnaa sawir ama wax ka dhigan kara html iyo sawir ama html qura marka inagu sawir kaliya aan rabnaa then saas oo save gareyn qaabkaas hadhow wuxuu ku noqonayaa inaad si dhib yar website ku saari kartid isla markaana uu compatible ku noqdo browserada intooda badan ka marka saa u save gareysid wuxuu noqonayaa inaad u isticmaasho as website ahaan haddii aad ka waran u isticmaalay daabacad ahaan isagana mar walba waxaan soo maraya wadadii ahayd inaan layerski tirtiro flat ka dhigo kadib markii aan sawirkeena soo save gareynay dabcan hadda soo bilaaben dabcan hadda xasuusatid waxaan ku soo bilownay inaan RGB-ga ama
mode ka soo dhignay RGB oo ahaa 3 color marka waxaan ka dhigaynaa 4 color oo ah CMYK waxaan tagaynaa image then mode baan sii tagaynaa meeshan hore kadib waxaan ka dooranaa CMYK color okay baan dhahaynaa kadib markaas colorkii mode-kii bedeshid mode-kan waxa loo isticmaalaa markii wax la printerayo in laga dhigo wixii u noqdo oo printerkii coloradii printerka uu isticmaalayo isku si u noqdaan marka uu si fiican ugu soo baxo korta colorkii doorano isla meesha baan maraynaa save as isagana waxaan geynaynaa meeshii aan kii hore ku save gareynay oo documentigeena hal meel say inoo ku save gareysmaan qaabkaas baan waxaan ugu save gareyn karnaa wax loo yaqaanay website iyo labadaba iyo digital ahaanba marka JPG baan ka dhiganaa markaan save baan leenahay qaabkaas baan u save gareynay isagoo JPG isagoo website iyo isagoo wuxuu yahay Photoshopka native-ka ah marka mar walba dariiqadaas maraysa waxa muhiim ah inaad iska hubisid markaad wax save gareynaysid oo si faylkaaga u fududaado in all layerskaaga one layer ku yihiin isla markaana aad dooratid mode-ka ama qaabka aad u isticmaalaysid printer u isticmaalaysid digital intaba ka dhigaysid marka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkii aan uga hadlaynay qaabka loo save gareeyo maxaa ku leeyahay documentigaagii oo aad as digital iyo as website intaba ka dhigi kartid dabcan cashirkan wuxuu ahaa cashirkii ugu dambeeyay kooraskii Photoshopka aan kaga soo hadlaynay asaaska iyo qaabka loo isticmaalo basic ahaan waxaan rajaynayaa inay wax badan oo ka anfacday haddii aad tahay qof Photoshopka ku cusbaa oo aad hadda si fiican u isticmaali taqaanid basic ahaanna ka dhisan tahay dabcan kooraskan waxaan ugu talagalay in sameeyo waxay ahayd dadka Photoshop cusub ama ay ku adag tahay qaabka ay u isticmaali lahaayeen inay base adag ay u qaataan isla markaana ay fududaato inay waxay uga baahnayeen marka ay ku isticmaali karaan runtii Photoshop markii laga hadlayo waa software aad u ballaaran marka waxaan soo cover garaynay oo nagu soo dulmaray intii ugu muhiimsanayd marka la joogo base-ka muuqaalkan wuxuu ahaa muuqaalkii ugu dambeeyay ee kooraska aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillah.